ciidamada SSC ayaa waxa ay horumar ay ka gaareen markii ay gacanta ay ku dhigeen magaalada Yogori habeennimadii xalay. halkan waxaan kula wadaagnay saqdhaxa xalay markii ciidamada ay galeen SSC magaalada Yogori iyagoo xiray wadooyinka halkaasi soo gala dhamaanba iyagoo weli ka bacsaday ciidankii mahadcan baashi halkaasi ku sugnaa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu kulan la qaatay habeennimadii xalay isla markaasna uu sameeyay casho sharaf garaadada kala duwan ee kasoo jeedo SSC ee ku sugan magaalada Muqdisho ee ugu horeeyo garaad jaamac garaad Ismaaciil. qaar ka mid ah xildhibaanada Ohio waliba gaar ahaan ninka lagu magacaabo Ismaaciil ayaa waxa uu tagay magaalada Sacano halkaas oo uu kurgalay caafimaadka iyo waliba dhibaatooyinkii ka soo gaaray weerarkii Somaliland ee ku soo qaaday magaalada isagoo waliba la kulmay garaadka guud ee garaad jaamac garaad cali. hadaba maxay ka wada hadleen barnaamijkeena qayb ka noqon doontaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hor yimaaday warqadii ka soo baxday ama kulankii ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba ama goboleedyada taasi oo lagu ansixiyay in laga saaro ra'iisul wasaaraha meesha isla markaana la magacaabo ama la sameeyo madaxweyne ku xogeen iyo waliba in doorasho qof iyo cod ah in la qabto. Deni waxa uu sheegay in taasi aysan aqbali doon isla markaana iyagu aysan qayb ay ka ahayn. waan faahfaahin doonaa ururka Al-Shabaab waxa ay soo qaadeen mar kale weerar waxaana ay weerareen ciidamada dawladda maxaa xillan kusoo beegay weerarada isdaba joogga ah ee shacabka ay soo qaadeen iyadoo ogeen in horey weeraro iyaga loogu qaadi jiray balse waayada dambe iyagu la kari laayahay. barnaamijkeena muu qayb ka noqon doonaa muuqaalka sheergaray asxaabtiinana la wadaag. barnaamijkan waxaa ila wadaagi doona isla markaana ila falanqeyn doono khabiir arrimaha caalamka gaar ahaan gobolka aad u xal dheer waa saaxiibka Gooni ayaan kusoo dhaweyn doona. Gooni marka hore soo dhawo habeenimada xalay saqdhax waxaan sheegnay in magaalada Yogori lagu kala baxay markaana ay ciidamada SSC ay halka guul weyn ay ka gaareen oo gacanta ay ku dhigeen. عكاشة وما سنتهاي هرتا مقالة يوري ومقالة مهم جدك كلا قايبسا لا سعانات يدنك أي أوك مركا ودداني وودا هالبولة أو عدم السومال استعمال جرين أنت بدن مركا حشلي وحكر دعي ما عباش عدم ديسا أي الله بقف كدلي أودتك دجاج سلام كان عرق قاعدتك عدم السي دجاج داسي كأجد وياس أرصدي سلا حالي نوير رأيك وخادن halkaasi kala carar iyo xabad ayaa ka dhacday ugu dambeyntiina mahad cabaashi iyo ciidankiisa meesha isaga carareen aad horsaasta ka daba dhacayso xataa mahad cabaashi xalay waqti dambe in la helo ayaa la sheegayaa oo waqtiga hore meel oo jaan cirib dhiga la waayay marka xaalad halis ayaa halkaas ka dhacday laakiin ciidamadiisi wuxuu ku adkeysanaya inaysan ka bixi doonin deegaanka Yogori maadaama dadka deegaanka ay mar walba dhibaato ku qabaan oo ciidamada mahad cabaashi qofkii ay rabaan ay dilaan qofkii ay rabaan ay xiraan marka waxay sheegeen in dad fara badan ay hadda ay xiran yihiin oo ciidamada Soomaaliya ay la tageen ilaa 70 dhowr gaarayo isla markaana ay ku maqan yihiin gacanta maxaa la yiraahdaa mahad cabaasho oo maadaama ay u xiran yihiin marka wuxuu sheegay in halkaasi gumeysi ay ka jireen gumeysigan ay joojiyeen wadadan ay bartanka ka jireen wixii hadda ka dambeeyeen ciidamada Soomaaliland ee ku sugan Gooja Cadde iyo la Sacanood aysan wada heli doonin ilaa ma maxaa la yiraahdaa dagaal ay halkaas oo ka dhaco. ciidamada Soomaaliland waxay abaabulayaan dagaal ay dib ugu qabsadaan Yogori maadaama xal habeenimo saqdhax ilaa 4 saac bar habeenimo 5 saac halkaas looga saaray isla markaana doonay inay dib u soo ceshadaan mahad cabaashi ciidamadiisana waxay meel 10 kilomitir u jirta magaalada Yogori ay waxay ka abaabulayaan leeyahay inay dagaal roo celis ku soo qaadaan isla markaana SSC ay dib uga saaraan Cukaasho. aad weyn wad mahadsan tahay waxa inoo raacaysaa isla la Sacanood baynu joognaayay kulankii ay wada qaateen garaad jaamac garaad cali iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada Ohio iyagoo waliba aan arkin maalmo shalay aan tabinay inay kormeereen goobaha caafimaadka meesha dhibaatooyin gaartay dhammaan horta dad muhiim ah ayaa soo gaaray magaalada Sacanood isla markaana ka soo jeeday deegaanada SSC ayagoo xildhibaanadaasi ka yimid Ohio ee dalka Mareykanka waxay soo boqday dadkoodii iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waxayna u kurgaleen xaaladda guud waxay tageen isbitaaladka ayagoo dhaawacyada hal u soo boqday isla markaana dhiirigelin u sameeyay waxay kala tageen furmaha dagaalka waxay tageen xarumaha caafimaad gabi ahaanba sida ay u shaqeeyaan waxaa la korontada meelaha ay ka jaran tahay dhibaatada ka haysato waxyaabahaas oo dhan ayay soo kurgaleen waxayna la kulmeen garaadka guud ee maxaa la garaad jaamac waxayna ka wada hadleen qaabkii SSC ee lagu dib isugu taagi lahayd maamulka madax banaan ee hadda la rajeynaya in lagu dhawaaqana ay u hirgelin lahaayeen kaalin buuxdana ka geysanaya xildhibaanada iyo dadka dibadda ku jira ee ku maqan ee qurbo joogta SSC sidii kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen dib u soo celinta howlaha caafimaadka korontada adeega bulshada dib u dhiska magaalada La Sacanood gabi ahaanba waxyaabahaas la isku soo hadal qaaday ugu dambeyntii afgarad ayaa ka dhacay in kaalintooda ay ka geystaan mar haday yihiin reer Mareykan iyo reer Yurub ee SSC ka soo jeedo in maxaa la yiraahdaa magaalada La Sacanood iyo deegaanada ay ku dhow dhibaatada ka soo gaartay dagaalada in dib loo habeeyo isla markaana qalab caafimaad oo casri ah loo hirgeliyo magaalada La Sacanood. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu kulan la qaatay ama casho sharaf u sameeyay
qaar ka mid ah garaadadii kasoo jeeday SSC ee ku sugan magaalada Muqdisho. haddaba kulankaasi sida uu dhacay weliba xog wareysiga labada dhinac ay iska xog wareysteen xaaladda laascaanood marka la goori garaadada xalay waxay la kulmeen Xamse Cabdi Barre oo asagoo casharaf ugu sameeyay madaxtooyada Soomaaliya isla markaana dhiirigelin u sameeyay iyo asagoo ka wareystay xaaladda guud ee magaalada Laascaanood isla markaana sheegay in dagaalka Laascaanood uu sii socon karin xilligan wixii ka dambeeya dowladdan wixii kaga aadan ay diyaar u tahay inay ka qabato waxay kale ka wada hadleen qaabka dagaalka loo joojin karo maadaama uu asagu uu yahay ra'iisul Soomaaliya oo ka damqanaya arrintaasi dowladda federaalka Soomaaliya kaalin weyn oo mug leh looga baahan yahay inay dagaalkaasi joojiso marka garaadadii way u mahad celiyeen ra'iisul habeen hore waxay la kulmeen madaxweyne xasan maxamuud waxaana dhiman kulamo kale oo la isugu imaan doono oo ay ka tashiga arrimaha SSC ayaa labada dhinac isugu imaan doonaan laakiin casharaf isbarasho is aragti ayay ahayd arrintaani waxaan isku soo hadal qaadan in mar dambe ay kulmi doonaan in kulamadaas dambena looga wada hadli doono go-aanka SSC asagoo markaas ka dhageystay qodobada iyo waxyaabaha ay kaga baahan yihiin maxaa la yirahdaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo wixii dhibaato ay halkaas ka jiro in si guud loogu dulmaray ra'iisul aad ayuu arrintaas ugu xumaaday dhibaatada ka jirta magaalada Laascaanood asagoo ku bogaadiyay maxaa la yirahdaa garaadada SSC inay soo gaaraan magaalada Muqdisho isla markaana dowladoodii ay la wadaagaan dhibaatada ka jirto deegaanada SSC laakiin inta badan madaxweynaha iyo ra'iisul labadaba hadalkooda waxa kamid ah in xabad la joojiyo marka garaadadu ay xabad ma wadaan waa la og yahay in iyagu weer lagu soo qaaday marka maxay halkaas oo la jeedaan may Somaliland la hadli kareen dhigi karin xabadda ka joojiya dadka shacabka ee xasuuqaysa horta Somaliland mar walba way la hadlaan oo marar fara badan ay la hadleen laakiin Somaliland waxa dhag jalaq uma siiso inkastoo hadda labada isbuuc la soo dhaafay magaalada Laascaanood ee degneed oo dagaaladii ay yaraayeen laakiin de waxa way abaabulkiin uu jiraa wali fikirku waa isku sidii marka in xabadda la joojiyo mar walba marka siyaasi ama madaxweyne ama xil ra'iisul ah tahay in xabadda la joojiyo ina ku baaqdo waa si baraha bulshada looga maqlo marka arrintaas oo muhiim in lagu dhawaaqo laakiin waxyaabaha kale ee tasiilaadka ah iyo waxyaabaha kale dagaalka in lagu dhameystiri karo si loo joojin lahaa ay ka wada hadlayaan marka mas'uul waxa looga baahan yahay in horta marka hore xabadda la joojiyo si maxaa dhiig u sii daadanin marka waa wax af macaanaysi koobaad inka mas'uulka soo hadal qaaday waa marka garaadadu inay dagaal wadin ayagu weerar ay ahayn dhulkooda lagu soo duulay dhibaato ay ku sugeen shacabkooda ay qaxeen magaalada la burburiyay waa la ogyahay laakiin de waxa la rabaa in garaadada horta la balmarkiina horta isqaboojiya si dhankaas kalena xal ayadana looga helo marka hawshoodana hoos ay ka wataan dowladda iyo garaadadu isfahansan yihiin laakiin de saxaafadda warar aan loo ogoleyn ayaa jiro waa markaasi banaanka lasoo dhigi karin waa waxyaabaha shirarka qaaska ah ama albaabadu u xiran yihiin ama SSC wixii laga yeeli lahaa ama wixii lagu garab istaagi lahaa taas waxaa wax saxaafadda loo soo bandhigaya ma aha laakiin de hadal guud waxaa jiro saxaafadda loogu talagalay Cukaasho kulankii dhawaan dhex maray madasha qaranka Soomaaliya ayaa waxaa ka hor imaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo weliba siyaasiyiin badan kuwaasi oo ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka tilaabsay dastuurka isla markaasna uu hagardaameyay mar kale weliba gooni madaxweyne xasan maxamuud golaha wadatashi qaran waxay ka heshiiyeen qaabka doorashada ee ka dhici karto dalka qof iyo cod iyo qaabka maxaa la yiraahdaa gobolada dhan muddo hal sano loogu dari lahaa isla markaana qof iyo cod ay ka wada qaban lahaayeen marka Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hor yimid wuxuuna sheegay in arrintaas suuragal ahayn qof iyo codna saacadan aysan ka dhici karin Soomaaliya markuu asagu qabanayeen la dhahayay Puntland doorasho qof iyo cod kama dhici karto wayna ka dhacday marka waxyaabaha la isku haysto almuhiim markaan soo aadno waa dhanka siyaasadda iyo xilalka ayadoo hadda dowladda federaalka Soomaaliya arrintan ay tahay arrin bandhigid ah laakiin aysan ahayn go-aanka ma dambeys ah waa laga doodi karaa waa laga fariisan karaa isbedelna waa lagu keeni karaa waxyaaba fiican oo la qaadan karaa rag professoriin ayaana ka hadlay oo qaarkood dibadaha ay joogaan waxayna sheegeen arrinta inta wanaagsan ha laga qaato inta xun waa la iska dhaafi karaa waana ka doodid laakiin go-aan rasmi ah dowladdu soo saartay oo lagu dhaqaaqayo ma ahayn arrintan golaha wadatashi qaran marka Saciid Cabdullaahi Deni iyo rag fara badan oo kasoo jeeda beelaha daarood waxay aaminsan yihiin in hadda arrinta socoto aysan ahayn mid wanaagsan maadaama hadhow laga yaabo sidaan hadii ku dhaqan gasho in beelaha daarood laga saaro xilka maadaama marka hore beelaha hawiye iyo daarood ay qabsan jireen labada xil ugu sareyso isla markaana xilalka muhiimka ah labadooda ay lahayd ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laakiin hadda ay soo geli karto beesha Isaaq markaasna laga yaabo in madaxweyne ku xigeen ay noqoto si marka hadda korba xilal badan ay u dhacday iyo waqtiyo badan ay u dhacday marka arrintaas ayaa shaki keentay iyadoo markaasi siyaasiyiintu istuseen Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarka ayaa kamid ah Cabdulle Gaas ayaa kamid ah ninkan hadda ay ragga yuulka Cabdulle Rasaari hore ayaa kamid ah ninkan hadda maxaa la Saciid Deni ayaa kamid ah gabi ahaantoodba waxay istuseen oo fikir ah in maxaa la yiraahdaa daarood meesha laga saar rabo isla markaana Isaaq iyo Hawi ay dib u midoobi rabaan markaasna labada xil ugu sareysa ayagoo xilka ay ku wareegi doonaan arrintaas ayaa marka siyaasiyiinta daarood ay ka doodayaan mar walbana ay ku dhaga adeegayaan inaysan arrintan socon doonin Puntland waxay sheegtay inaysan ka qayb geli doonin ama arrimahan aysan sii hirgeli doonin dib dambe aysan u yeeli doonin marka waxa la isku haysto Cukaasho waa halkaas
ururka al-shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay waxay qaadeen weeraro aad u xoogan kuwaasi ay ku qaadeen saldhigyo badan oo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo weliba kuwa ATMIS. haddaba saaka weerar ay qaadeen ayaa waxa ay kusoo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Gooni halkaasi waa meesha la yirahdo Masagawa ayaa weerar kusoo qaadeen, laakiin warbaahinta dowladda ayaa waxay sheegtay in weerarka markay soo qaadeen qaraxyo uu ku bilowday ilaa 2 qarax ay magaalada la soo galeen isla markaana ay diyaariyeen ciidamada weerar lah. marka labada qarax marka hore waxay sameeyeen jireen marka labada qarax ay dhacaan isla markii magaalada ay soo gali jireen arrintaas, laakiin maysan suurgelin. ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay ka warhayeen weerarka shabaabka ay soo wadaan, laakiin labada gaari qaab fudud ay ku dhaafeen oo gudaha magaalada ay isku qarxiyeen. ciidankii marka gurmadka ay soo weerari lahaa magaalada ayay ka hortageen, waxayna sheegeen in 10 shabaab ah halkaas lagu dilay isla markaana kaga carareen 2 qofood oo dhaawac ah magaaladana ay gacanta ku hayaan Masagawa. isla markaana dagaalkii oo halkaas ku fashilmay sidii qorshii ay lahaayeen, inkastoo labada gaari gudaha u gashay magaalada oo qasaaro dhimasho dhaawac leh oo kasoo gaaray dadka rayidka iyo ciidamada ku sugnaa magaalada, laakiin weerarka tooska ah halkaas kusoo qaaday riban ayaa la fashiliyay. maalmihii lasoo dhaafayna arrimahan weerarka wuu jiray, waa tii bulmarar dagaal aad u qaraar ku dhacay oo amisom ku dhacay oo dhibaato weyn ka jirta. marka bariyan waxay soo celiyeen dagaal joogto ah iyo qaraxyo joogto ah ay shabaab soo celiyeen. Uganda waxay isweydiinayaan sababta xillan kusoo beegtay in shabaab ay soo qaadaan weerar joogto ah waxaa kusoo beegtay weeraradii joogtada ahaa iyaga lagu qaadi jiray ayaa meesha ka baxay, maadaama dowladdu ay sheegtay inay isku diyaarinayso waxaa la yidhahdaa phase 2 waxa loo yaqaan. waxaa kaloo kusoo beegay odawaa iyo saraakiil Mareykan ay waxay gaareen galcad, galcad markay gaareen galcadii Masagawa wax yar ay isku jiraan. marka waxaa la rabaa in qalqal la geliyo saraakiisha halkaas gaartay si phase 2 aan loo gelin oo san dagaalka hore ugu sii socon. hadda waxaa la rabaa maalmaha soo socdo in ceelbuur iyo deegaanada ay kaga soo yeesho shabaab gabi ahaanba iyo gobolka Hiiraan meelaha yar kaga hareen in lasoo afjaro isla markaana dowladdu ay u gudubto phase 2 rasmi ah. taas ay qorshaha socdo ay rabaa in ka hortago. waxay kala fashilnayeen ciidamada Uganda oo ayaguna bariya lasoo dhaaf bulmarar iyo deegaanada afkooda u dhaxeysay ilaa number 60 aad u dhowbnaa, isla markaana rabay in maxal howlgal ka sameeyaan deegaanadaas. arrimahaas oo dhan ay rabeen inay ka hortagaan shabaabkan. waxaa qorshoodu waxaa markay qaraxyo weerar ay sameeyaan waxay mar walba ku fikiraan in uu baaqsan doono ama dagaalka ama qorshaha lagu soo wado inuu meesha ku hakan doono ay niyad gashtaan. aad u weyn oo maasan tahay daawadayaal intaasaan kusoo koobnaa barnaamijkan kooban muuqaalka shirgeer saacadina la wadaag.